السلام عليكم كسو دواو سانك جوشا وحكاغو سيرتا وحخرسكا وناكسن درجوين كسر لو غارو ما يسويديسay maalina sababta uu saaxiibka natiijooyin sare u helo idinko iskuul ah isku hal macallin wax idin dhigo muxuu kaga sarmaraa mar walba hubaal waxa ah in dadka intiisa badan ay wada kasta u maraan sidii ay uga gulgaari lahayn wax akhrinta haddaba halkan waxaynu kula wadaagi doonaa 10 qodob oo ka saacidi doona ama ka kaalmeyn doona inaad wax akhris badan sameysid xoog saarid inaad shayga xooga saarto oo doohanaanta iska ilaaliso waa furaha akhriska maskaxda saafiga ah ee mashquulka kala ka maran ayaa ah tan loo baahan yahay waqtiga uu haboon ee wax la akhriyaa waa waqtiga subaxii hore waana waqtiga ay maskaxdaadu soo jeedo diyaarna u tahay in wixii aad akhrido ay qabato 2 muhiimadda maadada u gaarka ah tusaale ahaan haddii aad baranaysid maado ku saabsan suuqgeynta ka fakar si aad hadhow noloshaada ugu dabaqi lahayd oo aad ugu shaqaysan lahayd 3 ha ku muuqdo hadafkaaga waxbarasho markaad hadaf gaar ah daba socoto si dhab ah waxa xaqiiqo ah inaad maalin u gaarayso intii aad wax u akhrin lahayd sabab imtixaan naftaada u diyaari sidii in laga doonayo wixii aad fahantay inaad dad kale u sharaxdo wadadaasi waa tan ugu muhiimsan ee aad ku gaari karto guusha akhrinta ka hor diyaar garow sameyso jadwal akhris oo qorshe maalinle ah ku salaysan qayb kasta farac kasta maado kasta maxaa yeelay waqtigeenu inta badan wuxuuna kaga lumaa jadwal la'aan taasina waa tan keenta in waqti badan maadooyinka adag ka bilow maadooyinka adag si aad u dareento inaad talaabooyinka ugu adkaad ka soo gudubtay inta yar ee ku harsanna aad dhameystiri doonto 7 meel go'an wax ku akhri meel go'an aad wax ku akhriso sameyso ka fogow goobaha cuntada telefishinka xitaa mobilka waxaana si wanaagsan inaad sariirta ka fogaato 8 ka fogow waxyaabaha ka mashquulin kara sanooyinkii dambe mowlada smartphone-ka loo yaqaano ayaa noqday waxyaalaha waqtiga badan oo inakaga lumo sidaa darteed waxaan ku talin lahaa inaad iska fogeyso xilliga aad wax akhrinayso iyo maalmaha imtixaanka waxaana fiican inaad noloshaada bartid inay ka maamul karto mobil 9 ha isku badin cunooyinka waayo markastoo aad dheregto oo calooshaadu ay dheregto waxaad dareemi doontaa caajis badan caajiskuna wuxuu keenayaa inaad ka caajisto wax akhrintii 10 isticmaal ereyada dhiirigelinta waalidku waa kaalinta koowaad ee ku dhiirigeliya haddii ay waalidka ay ka soo bixi waayaan ama cid ku garab istaagta aweydo adigu mar walba isdhiirigeli oo isticmaal sugaanta iyo ereyada dhiirigelinta sida yaraanta waxaad ku barataa weynaad ku arki doontaa